واي هاي واي أصل بو حايدا وادي قد ما تي أن كلا دمنا هذه يعني الشيغانين ما شيغانين وما شيغانين سبب أي كاي مال بابا رجاء لو حياة مال بابا صور كذا يلا ما شيغانين هاي شيغانين هذا سبته هذا تبكي أجانا وحسبك أنا يسوق سعد بس بعد دون كبادي وجوك تودا ما تناس عليه هاي شو ده خوف ده أنت إيه ماني أنا إيه بحبنا إيه ترى هاي هذا أنا عيبان كوسو جدي ملها أنا كبحان هاي قف دوجنا أنا هاي هذه أديك أدرين سنت هاي أو أديك أدو فكرة سنة كو أيه لا بابا أديك هذا بالي طبعا لا بابا صبر كذا دكتي لا بابا هذا ده قواد أبس هاي عيبان كوسو جدي أديك محيطها أديك النفس ده هان هذا عيبان كوسو جدي محيطها أنا كبحان هاي أنا قال هاي ونفس ده أنا وهاي لكن أديك النفس ده هان هذا وحن كوجو عيبي براني قد عسي ما فاهم سنيب waxaa adin nasabdaad aad yeeshay oo suubinaysa adigu بس كوجو عادي عادي كلا شخص بقى من هاي هاي يعني كلا شخص يعني هاي كلا شخص يعني هاي يعني أديك وحي أديك واحد أديك جيسته أي عيب كو إيمانيسا لكن أديك واحد أديك جيسته سيدا عيب كو إيمانيسا أديك أنا نفس ده نفس أنا هاي نفس ده هاي يعني نفس ده محاكم يمسن dadkaas ku dhahayo waad wiilkaagu ku ceebay ma aniga nafsadeeda kama himsan hooyo oo aniga ima dhalin miya adiga waan ku dhageysanaya waan ku maqlaa hooyo aniga waxaan daday waalid qaba in baan qaba intaas sanad qaba meel sawirkaada yaala dewarun hooyo taas waarun hooyo gabdhahaada waa la qabaa wax ka dugan taas waxay ka dugan tahay ma lahan ani caaban ku ceebayay ma lahan wadiya manin baa la qabaa manin la qabaa dawal ha shansi baatay waxa ma fani ee kormood waan ku kormood ah oo shansi waan hay asal ma waan ka dhintay babay washansi waan hay duyus baan hay wax walba waan hay ay baan hay wax walba hal igu sheegay ani waad ceebaysay laad aniga waxaan kugu ceebay oo aniga adan kugu ceebay bar ii sheeg ani taas waan garan lahay adigu waxa kugu muhiimsan adiga hooyo ahaantaad waxa adigu kugu muhiimsan dadkaas ku dhahayo waa ceeb waxaas oo adiga waxa adiga nafsad ahaantaad aad dareemayso ayaa adiga ii ka muhiimsan adiga idashay waxa ka muhiimsan waxaas dadkaas ay sheegayaan kaaga muhiimsan niman way isqabaan meel walba dunidan maanta la joogo niman way isqabaan way isla xariiraan way wada joogaan asal boo xaga dhaad waan ka dhinto hooyo waan kala dhimanay qabrigaaga dhimi imaanayo anigana hay sheegan warigaaba sidaas waxaad ii soo tartana malaha horta ma been baa lagu sheegay weli anigu waan iska joogay dunida waan iska joogay ma ahan waad i keento ma ahan wax bin aadan oo loo taro uwadkiis loo taro oo ii tartay aniga mala been baa la isku sheegay ya meeshaas aniga li qaraac jiray dil jiray oo iskuulka liga soo ceeran jiray waxaad iga ogeed ilaahay unta mala maraamirsinyadaadu wuxuu ahaa adiga hooyo ahaantaadan ku sheegay maraamirsinyadaadu wuxuu ahaa inaad adiga dhahdo uwad kala aad raacaysaa koleeto waxaan kugu daalaya mala ya oo adiga markaad ilmaha dhalayso intaas ilma aad dunidan keenaysa ya mise aniga aad keenaysay miya adiga go'aan mi ila tashata aniga dunidan markaad keenaysay markaad leedahay waad ceebays aragtaan ku keenay maxay tahay wadadka miyaad isfahmaynin Soomaali maxaa naga dhigay aniga Soomaali Maxamed maxaa naga dhigay waad ceebaysay leedahay ani maxaan kugu ceebay aniga wax adiga kugu ceebay maanta oo adiga aan nafsadahaantaada kugu ceebay bar ii sheeg warbay maal isku sheegay hooyadan aan ku sheegayo gabadheeda intay iskuulka bixisay bay gabar kale oo ayada dhashay ee shaqaale uga dhigtay oo mar walba gabadheeda kale markay soo kharaacdo madaxa ka kharaacdo gabadha kale ee ka soo carootay ee guriga imaatay waxay dhihi jirtay hooyoy aniga haddii aad gabadha walaashaada aadan magaceeda aad ka soo carootay mise ka soo tagtay ani ha sheeganin ku raabo mar walba gabadha kale ee la joogtay madaxa ka qaraaci jirtay iskuulka laga bixiyay ee shaqaale u ahayd ee guriga subaxda say u soo kacdan la sayday ilaa habeenkii ee guri uga shaqayn jirtay
marka dambena waxay ku khalabtay nafsad ku khalabtay gabadha ayada inay ka cararto walaashan inay ka cararto nin oday oo marka adiga 40 jir ayadoo ilmo yar inay guursato ay ku qasato nolosheeda alxamdulillah shukr maanta ilma meesha ka waday 9 ilmood u dhashay ilaaha u daay waa hooyo lagu sheegay Soomaali been maal isku sheeg waxa lagu leeyahay hooyada waxba hooyo waa tii ku dhashay hooyo iska dhalmiya hooyo tii ubadkeeda ilaaliso ubadkeeda korsato ubadkeeda wax u qabata ma ahayn Soomaali hadana oo ubadkeeda ogaata har iyo habeen hooyo umaalile hooyo way ku dhashadaas miyay xaq kugu leedahay asal baan iska kala dhimana waxba yaan la sheegan aniga weligeyga dunida markaan inta aan joogay ilaa hadda waxaan dareemi jiray inaan qofna iga dhalan aniga qofna inuu ila dhalanin qof inuu i dhalan dunidan kaliya inaan ahay ayaan weligey dareemi jiray waxaan aniga aan ahayna waan ku dareemi jiray hooyo sama hadda waan nooshahay waxaa la dhihi jiray oo hooyo naxdin bay u dhimanaysaa waan nooshahay hadda waa taas ila murmaysaba geeridaadana ma imaanayaan is sheeganin caasi samaa caasi kii ugu darnaana aniga naar samaa naarta kii ugu kullaa angalo babeen baa la isku sheegi waxaa iga hanaajiyey maanta wayna ogeyn inaan duubaa codkeeda inaan duubaa way ogsooneed way jirtay telefoonka ayadaa igu jirta igu jaraad sheegayo telefoon dambana ha iga qabanin aniga waama nisanayaaba waama kaa idinkaan iga nisanaya inta rafaadkiina iisoo sheegi jirteen maalin walba aad igu bari jirteen hooyo lacag ma leh lacag iisoo dir kan baa saasa kuus baa saasa guri maxaa u dhisilaada heblow baa saasa sidaa iyeel aad idhihi lahaadeen baaban iga reesanaya idiga reesanaya waxaad ii sheegaysiin mala awooddeedana halkan ku imaaday awooddeedana maanta aniga aan sidan heerkan aan gaarsan aan soo gaarsiiyey awooddeeda maanta aniga aan ku noolaa qof nafsi qof oo aniga familigeyga aan wax ka sheegto ilaahay unta mala banaankaas weeweynta dunidaas weeweynta dib ha loo kala maro ya beentaa la isku sheego meera hooyo waa wiil baariyaan ahaa aniga waan baari baan ahaa gabar baan guursanaya gabar baan wax beentaa in la wado umeera waan weligooda waxba yaana aniga been liima sheegayo koleeto waa daawatay klibyadeena klibkeena inaad daawato waad arki doontaa maanta wixii ka dambe xor baan ahay xor waxaan ka ahay familigeyga ya niyadeyda hadda wallaahi waxay waan careysana waxaan ku careysana hooyooyinka Soomaalida aan u careysana inaan ka sheegay halkan Mariwi laakiin gabar baa shalay iska ooyneysay hooyadeeda sida u soo gashay iska ooyneysay waa hooyaa lagu leeyahay gabdhihii bay ku shaqaysanayeen shaqaale ka dhigan gurigi wiilashii baa sida boqorinta intay jeeftaan sariiraha cuntadii ay karin wiilashii gurigi dharkii u dhaqi ya gabadhina waxay ka tahay gurigaas mala waa iska shaqaale hooyada waxay idii jirtay mar walba idii jirtay gabdhahaas iskuulka ee aadan ya nimankooda way diyaarsan yihiin alaabtooda way gadan yihiin may alaabtooda dukaan bay yeelaan hore markay ka guursadaan alaabtooda wax walbo nin baa hore u soo shaqeeyey oo bas adiga ya sigaar baa tuugan kartaa baa tuugsan doontaa maadaama aad iskuul aadaynin iskuulka waxaan u aadaynin koleeto way iska dhigatireys iskana indatireys weligeeda kulligood waa lagu blaamka waa mu adiga khaladka adaa leh hooyo waa garteed baa lagu leeyahay garteeda maxay tahay hooyo hadday dhulkaas ugu hilmaamtay waxba aysan kaa ogeen ilaahay untay ka ogtaa aysan jirin waan ooyay ku leedahay haddaad ooysan ani meeqaan ooynay haweeney digaar baan ooynay oo ani aabalaanaan u ooynay hooyo la'aanaan u ooynay walaal la'aanaan u ooynay ciilkii hayaan u ooynay ilmo idileen u ooynay caydil iyo caynaan u ooynay ya ma ooyin baa wax la iskaga qaaday calool xumada la iskaga qaaday waxaad ii sheegaysiin mala ilaahay ma geeridaad ma berit imaato geeridaad berit ma imaato sidan had waabad iga dhimatay geeridaada sidan baabay tahayba iga dhimatay waad iga dhimatay telefoonkeygana ma haysid bakan waa kii shaqada hana iga soo wicin haddii aad iga soo cadan kaama qabanayo
ma run baa laisku sheegin sabaan blog baan ku saaray had sidaad ii soo bixin baadi ceeysay kulaad maxaan kugu ceebay aniga maxaan kugu ceebay adiga aan kugu sameeyay adiga maxaan kugu sameeyay kala shakhsiyana laba qof oo kala shakhsiyana noloshaada adiga waxaad adiga galabsaday aniga hadda maanta haddaan wax galabsado oo dadka ay fiiriyaan ceebta aniga aan galabsaday ayaa ceebe adiga ceebtaan ku keenay maxay tahay mise dadkaas waxay dhahayaan dadka bini'aadanka waxay dhahayaan ba adiga kaa muhiimsan wiilka adiga dhashay oo 9 bilood caloosh ku soo wada koleto wax adiga ogsooneed ma lahane hooyo beenbeeno hooyo aan jirin ilmo markaan dheeli jirna aan la dheeli jiray baa gurye la dheeli jiray ninkayga waayo ilmahayga waayo beentaas ayaa aniga aan ku dhashay kuna soo koray wax liiga ogsoonaana mala been baa lisu sheegay war caasi maahana waxa doontiin igu sheega waxa aad doontiin igu sheega bye bye